yaqaanaa ina yaro shalayna Falastiin idin bixinayo idin caayay maanta maxaa ka soo qaylinaya oo fiisidi ka raadsada ba karaamo u leedihiin oo jeceshiin oo idin xukuma oo shalayna ku caayayo Falastiin ku caayay caqiiba halka ay jooj arkabtan laxday arba meel xun bay kugu dhufatay walaalo waxa la yiri todoba dumar الله يمسهلنا ولا ماشي كا دحدنا وبلو ويا اي غرات والله لا اسك دول قادو وما غنايسا قار حيتري ان يرى شلت فلسطين نيغو شيغي او فيس نيغو راتنيا ايا دمانتي جيشنو تاغرسنتي بساساي تيجول وان الله وكيف فلسطين كو شيغي ما فهمني بس halkan baar ya walaale ya hartiga la hadlay hartiirana marka ay leeyahay waa kuwa waxaan la hadlayaa hadii aan ku rooyahay Falastiin hartiga Falastiin halka ay jooj aan xeyd waxaan la hadlayaa hartiga yar yar kuwa Falastiinta Allah haday waxaan la hadlayaa reerka abka qurmay oo daarood ku yaalo leeyahay dhulbaantaan leeyahay alaama marka waxaan leeyahay ad qurmo kaad wariyaa كل فريق قلتله أنا جاي واحد الناس كان سقطانك والله في مقو تشحبال تصي وأنت هذا من كسر غيرك وعايي فخلص لقوا شيء هي خلص لماذا تشوكتها يا إن عس لماذا يعلاج لماذا أودرتها محاتر فيمة إن يرى فيوس يقول رتنية وشلت أنا فلسطين يقول شيء أيام لما أنت تعيشي وتقالي نقلي والله وارنتها ولا فيمة السؤال كلام كويدينية بلاد حالكا لغو قدوسينيو كابتن لحظة بلاد سنة محاي تاي ما بلاد فيسك يلايتي وسو شقتك خلي هذا وسو شقتك تان كمية بلاد نيشك وكادي بلاد محاي لغو سيي marka walaalo maradu reerkina sidaa u caayay imikana waxba taray ee fiis yallay ku sameyn horta بلاد فيوسك يلايتا هي مقرسة قناعسك وصوش قناعسة تجي الله سعنوط أيه اللي سيسو سلامة يا سديت بلاد كبعدي أي حقيقة اللي وقال والله صعب صوتي لك سوى كحمة كورتا دي نجاها من السدين أو ينجاب بنشرين أو قلادي نجاب بابين أي حوار السد كذي صوت هابتين أرين كلام هذا لا يابي وحنا هذا لا يابي وحي هذا وقت فشي gacantaada ku samaysay ayaad aad ugu cabanaysa anigu hadalka kama sinaysto xaqada ugu mayso waa gabar iyo waa dumaashiyo abtaa loo yahay magaas waxa ma dhageysto walaal runta ku shaqeeyo walaal waxa tiri maanta hadalkan ayaa tiri tan aan leedihiin ma jirto ma anagana weydiisan karo anaga joognay $100 iyo $80 ba guriga lagu degan yahay qof laga sugo bisha shanteeda haday gaadho lixdeeda laga sugaa ma jirto tulimada iyo walaalnimada iyo ismana sheegashato la isku mana sheeganaya waa noocee weeye وكادي waxa ay tiri guriyaha galawe hadii aan nahay reer laascano dadkii ka qaxay $100 iyo $200 baan ku deganay tir oo bil walbana la ka qaadaa hartinimo iyo waa dadka shacabka soo qaxayna kaga daayay tir walaalay ruba ku sheega hadalka qof kale waa ka filay la saadi kama filay qof kale inuu kirooyin ka cawdo maartay garawe waxa oo arinta yiraahda heel kiro maxaa heel harti u sameey weydeen waan ugu garaabi la saada kugu garaabi maayo waayo adigu wad u bareetay shalay baad waxa tiri shan guri ma kulay la saanood wallahi waan ka samraya bari ma dib u dhisay guriga waxaan u madanay iyo kiray ayga shan guri baan kulay shalay baab baan kulay la saanood inay gubato igama dambayso hanti waxaan lahaa la saanood bay taala inay gubato haddii gobonnimadeedu ku jirto inay gubato anaa rabo inay gubato oo dhulka gashaadi walaalay haddii adigu aad rabtay shantaadii guri inay gubtaan oo khalasiintu ay ololiyaan oo aad xitaa tiri taa waxaa danayn maayo dhulka hala dhig gobonnimadan u horayaa damaanta aad kiraya waxaa ka cabatay aad tirada hiil kira ayaan u baahan inaad tirada ma yahay ya miyaanad maqal maamaada tirada midho guntaha ku jira midho geed saaran looma daadsho almacno shan guri oo aad ku leedahay laascaanood guri ma jeerteen garawa kaaga kareenayo looma gubo looma ololiyade ya walaal waa ku sidii xitaa dadkii bilaa guriyaha ayaa jad bohol uga talaabsatay oo mid walba isiri mar hadii
fahmo quujo shan guri leh ay guryaheeda gubayso maxaa adiga kaa gubanaya hore u sirra ama garanaysa iyo jabad uga talaafto aakhira waa lagu weydiinaya dadka guryaha lagu qaaligareey garow walaalo si wacan baa lagu weydiinaya walaalo adigii shantaadii guray gubay ee gacmahaaga ku ololiyey baa kara ka hadlaya qodobkaas waliba anigu adiga waxaan aad uga naxay masaakiintii bilaa guryaheeda runta mooday ee timirta fiima gurigeeda gubtay teeda bilaa guriga maxaa ka gala hore u sii raac dadka jarka uga talaafsan aad uga naxay mid kale waxaan aad ugu qoslay oo nimankii aad ahayd walaaladii baad maagaysaa balse hadalka maxay tahay balse waan dhageystay dhulbahante ee Puntland ku amaana ee yiraahdo taankiyo iyo waxbuu qabtay wacal dhalay oo 7 wacal iska dhaleen oo aabihii wasaa oo doqona weeyaan adeer oo kaadi waxa ay tiri qofka damay dhulbahante ma jeerteen ku amaana ama ma jeerteen amaana Puntland amaana waa wacal dhalay oo garac bay tiri dumash abt in adeer يا adiga kuma oran karo garacad baa tahay adiga baa naftaada xukumay bal adigu is xukun wadiga ma jeerteen amaanaya halkan iyo ka eg kasta oo ma jeerteen maanta la sacano difaaciida maaliya maskaxdu ku jiga oo kaadi nin kasta ma jeerteen salaandheera wuxuu ku bixinaya halgankiisa la sacano maaliya mood ku bixinaya baridaba adiga hadalka la iimaanay markaan uu garacad ku sheegay walaalahay maxaad ku sheegaysaa adigu isku sheeg naftaada xukun walaalahay ana weerarin walaalahay iyana xaal ma loo qabsanayno waa ku sidee inaan qofka bini'aadamka hadalkiisa markaa dhageysanayo anigu iskama liqo waan eega waan qodobeeyo waan eega waan rugaa qofkan muxuu odhan jiray muxuu ka hadlayaa husi fahmay in la isfahmaa fiican ma jeerteen inuu laascaanood yimaado baridiisa weynad la soo galo xasaskiisa iyo xabadeyda dadka qaybta libaaxa la ka ciyaaray baad kamid ahayd adiguna matay qof shacab ma tidee qof xildhibaan hore ahaan jiray baad tahay oo dawladda Soomaaliland kamid ahaa oo saameyntiisa leh oo niman adagna ka soo jeeda oo aabyaal wanaagsan magaranaysa fahanti qayb libaax la ka qaadatay adalahay walaal adeerkay ma jeerteen oo kaalay my god أنت بدنا كل شيء جاي لا سعانود waxa ku dhacay aad baan uga xumahay dadka maxasta ma tada ee jilicsan aad baan uga xumahay qaxaya barakaca soo gaaray iyo daawaca soo gaaray dadkan wadan waxba igama galin imika tusaale baa ku sinaya ninkan wayna jabutaawi dadkii halka ka taageeray buu kamid yahay qaybta u ninkiyay maanta uu isku cilkaabiyay koo hantidiisa ku baabaalay laba wiilkiisa curad baa ku dhintay allah uu naxariisto qabriga uu nooriyay wuxuu leeyahay waxaan hargadiina gacliga ma hayna qabriga iga soo saar hargariga lahayni laascaanood waxba igama galin carruurteed ku maratay fahmo ku sheeg wallahi anigu dhibaatada tood dareemaya ma jeerteen marka la eegana meesha waxa yimaada koow way soo shaqo tageen ganacsi bay ka sameeyeen wadiga iibgeyn iyo suuqgeyn baa loogu sameeyay laascaanood dekada garacad ee gebigeedaba marka ma doonyaha soo taageen marka bisba soo taageen meeshan sidoo kale khabrigi baa loo soo iibgeynaya sidoo kale mashruuc baa laga dhigtay dadka caydhiga waxay soo diraan xoolaha soo diraan in halka lagu jaqo lagu daaqo ganacsi lagu qaylo ilaahay baa ku dhaartay shacabka reer laascaan waxa soo gaaray waxa naga gaaray wallahi aad baan ugu damqadaa laascaan sida yahay imika bariga hore ceer gaabo iyo laascaan kiiba weynaa bariga hore intii Soomaaliland laascaan ay tagin meel ba qaatay ceer gaabo weynay maantana 15 sano ka bacd laascaan iyo ceer gaabo isma dhawa way ku laba laamaysaa ceer gaabo ku laba laamaysaa horumarka baaxadda leh ee laascaan ay sameysay dadii 15 sano ahayd ee Soomaaliland ay joogtay wixii 15 sano la galiyay waa ka kac kabtan laxda ina kaaya ee laxda ay fayuuska raadinayaan qajilay ragga maqalaya ayaa isaga ka taran mid kale ku darsanaya fahimay horta mid baa ku sheegaya maalintii ciidanka Soomaaliland ay laascaanood ka bixeen iyagoo idinka ilin tuuraya shacabka Soomaaliland ee dhulbahante ee ku nool laascaan iyagoo u tuuraya maalintii idinka bixeen ee waliba adiga iyo group aad hor boodaysan galaysan xafiiskii ina kaahin ee laascaan gudaheeda ee lugba meel aad soo dhigaysay
هذا الباب ما تاير هذا الخاسر ما تكون حصية مقال كيجان waxaan ku yiri walaalayaal meesha aan u baxay ma ka saligaan digay ku xarooday hadii wallahi billahi tallahi la iga saaro la saarad waxaan tusayna la iga saarin maalintaas hadii maalinta la iga saaro inta iga daba timaado hadda iga saartaan wallahi garkan waan iska xiray halkan youtube kana maalinta soo farsamaya baan igu عشان waxaan cadeynay maalintaas inay iskood uga baxeen ciidanka Soomaaliland la sacaanood oo aanay shacabka yaryar ee qoryaha yaryar ee akeega sitay dhagxanta tuurayaan ka saarin meesha balse tuuraale iyo naxariis iyo la xajaclana haystaan uga baxnay meesha hadii ciidiga saari karayso maanta gobolkii Sool wariga dhinaca soo fadhiyay waxaan oo ciidana meesha keenteen iyo hubays keenteen wali taangiyele ee PM leh ba iga saari lahaa ya halka ka shidaal qaado walaal ma adigu bood ogtahay inaan naxariis meesha uga baxay galgacal aan qabo dhulbaanta u qabadad haddaad sal ogaan lahaa ummadan inay ku soo xaroonayso kamaan bixin nefa oo sababta maanta ku jacdiye maraagan uga bixi lahaa ma kamana baxayana waan tan soo galay imka wallahi inaan ka bixin wallahi been shigmay laakiin soo la isbinaya meesha huwa لما هو اللي ما كان ساريو وإنا قرتان إلا إذا كأت كهذي وكذا كمان حالينا داعي